السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحابتك كسود وهذا مقال عصب فيديو waxaa idin wadaa muuqaaladii hore ka duwan xanuunkiisa iyo murugadiisa wata soo dhawaada muuqaaladii hore hadaa ku xirnaa jirteen waxaa idin leeyahay muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro fadlan fiidiyowga noo sharagaree asxaabtaada la sii wadaag sidoo kaleeto fiidiyowga laag dhac ku sii waa mahadsantihiin haddaba soo dhawaada qisadeena maanta u gudagalno qisadan waxay ka dhacday wadanka Yemen waxa ina dhacday muddo hore oo qiso hadda dhacday ma aha waxaa jiray wiil dhalinyaro ahaa oo la dhihi jiray Idris waxa uu ahaa tagsiile markaa tagsi ayuu ku shaqeyn jiray waxa uu la noolaa hooyadiis aabihiis oo qof weyn ah qof da ah iyo sidoo kale hal gabar oo la dhalatay noloshooda oo sidaas iska ah oo jawi iska caadi isaga jiraan ayaa waxaa dhacda waa halka qisada ka bilaabanaysa Idris habeenada kamida ayaa waxaa da'ay roob aad iyo aad u xoogan roobkaasi da'ay kadib wiilkan Idris lagu magacaabo waxa uu soo boga shaqadiisii waxa uu soo aaday gurigiisii oo waxa uu u sii socday xaafadiisii asaga oo wadada soo maraya ayaa waxa uu arkay gabar markaas qeylinaysa oo wadada dhinaceeda taagan gabadhu waxa ay laheeday qof i caawin kara ma jiraa marka baabuurada oo dhan dhinaceeda ayay marayeen qof uu istaagaysana ma jirin xilligaas gabadhu indhaha ayaa u xirnaayeen dhar madmadowna waa ay qabtay ayuu yiri roobka oo aad u xooganaa si fiican looma arki karin laakiin waxaan dareemayay in ay ahayd qof u baahan caawis sidoo kalena gaarigeedii uu ka halaabay waayo gaariga agtiisa ayay taagneeday markaa kadib aan arkay in dadkii oo dhan ay sii dhaafayaan ayaan go'aansaday ayuu yiri inaan gabadhan caawiyo laakiin habeenkaas balaayo igama horeyn ayuu dhahay mana ahayn inaan istaaga laakiin markasta oo arrin ay ku qabsanayso waa wax adiga aadan la soconin markaa kadib habeenkii waa uu istaagay wiilkaas waxa uuna gabadhii weydiiyey waxa ku dhacay iyo waxa ay rabto gabadhii ayaa Idris u sheegtay in markaasi ay doonayso in la caawiyo gaarigeedii oo ka halaaway haddana ay tahay habeen waqti dambe sida caadiga ah dadka tagsiilayaasha iyo dadka gawaarida ka shaqeeyo habeenadii waqti dambe ayay shaqada ka soo baxaan wiilkan sababta qisadan ugu dhacdayaaba waxay tahay in uu socdo waqti dambe micnihii sidoo kaleetana roobna uu da'ay wiilkii wuxuu dhahaa waa ku caawin karaa soo kor gaarigayga ayuu yiri ayadiina gabadhii waxay u dhiibtay xaansho ay ku qorneeday ciwaan ama address waxayna ku tiri xaafadaas ayaan deganahay ee xaafadaas nagee xaafada ay gabadhu u tilmaantay waxay ahayd markii ugu horeysay Idris maadaama uu tagsiile ahaa waa fahmi kara ayuu yiri xaafadaha qaar laakiin markii ugu horeysay ayay ahayd aniga oo u maleeyay gabadha kaligeed ayaa waxaan arkay ayuu yiri qof kale oo ka soo degay gaariga ay gabadha wadatay sidoo kale qofka kalena wuxuu ahaa qof dumar oo indhaha u xiran yihiin marka wuxuu dhahay wax shaki ima gelin labadii gabdhood ama labadii dumarka ahaa waxay soo galeen gaariga qaybta dambe ayay fadhiisteen anigana waxaan bilaabay ayuu yiri inaan dhaqaaqo oo addresskii ay ii sheegeen gabdhaha aan raadiyo addresska waxa uu noo jiray ayuu dhahay ku dhawaad 30 daqiiqo aniga oo isla ama ka daahday gurigiinii oo maxay ahayd waqti dambe aad tagtaa ayaa haddana go'aansado ayuu dhahay inaan caawiyo gabadhaasi ama labada gabdhood oo markii hore aan u haystin oo hal qof uu ahaa marka gaariga uu dhaqaaqay ayaa wuxuu dhahay gabadhii ila hadlaysa ma ahanay gabadhii kale indhaha xirneed waxay bilowday qunfac aad u fara badan kadibna gabadhii ayaan weydiiyey oo ku dhahay qofkan muxuu kuu yahay halkaas ka imaadeen waxayna igu tiri qofkan waa hooyaday way xanuunsan tahay dhakhtarna waan ka imaano oo hadda wax dhakhtaran aad nageynaysid ma jirto ee bas kaliya gurigeeni nagey ciwaanka aan kuu sheegay ayaan deganahna ayay ku tiri waan dhaqaaqna ayuu yiri roobka weli waa uu socdaa iftiinka waxaa moodaa nalalka oo kaliya in la arkay oo wax shanqara oo dad markaasi socda wadada ma muuqanayaan ayuu yiri kaliya baabuurada dhinaceega marayaan ayaa arkay waxaan soconaa wuxuu dhahay qofkii qunfac aad u fara badan ayuu waday micnihii qofkii gabadha ay la socotay dumarka ahaa intii ay sii socon ayaan weydiiyey magaceeda waxa ay iigu sheegtay ayuu yiri in la dhaho Dahraan markaad gabadha u sheekaynayso wiilkan Idris la dhaho iyo gabadha xanuunsan laba qof ayay kala yihiin oo qofka qufacay waa qofka ay ku tiri waa hooyaday markaa kadib wuxuu dhahay addresskii ayaan heli weynay markii aan soo soconay 25 daqiiqo ku dhawaad waxa ayna marka ka dambeysay ii tilmaamaysay inaa addresska uu sax yahay laakiin gadaal aan ka soo galno wadada waa ka baxna ayuu yiri oo meesha aan ku socon waxay ahayd dhul iska caadiya markaa kadib wuxuu dhahay anigu weli waxaan isla ahay qof iska caadiya oo rabo inuu caawiyo uun dumarkan kadib wuxuu dhahay mar aan yaabo isla markaasna addresskii aan fahmi la'ahay
anigana aan si fiican u aqaana adareyska iyo sidoo kaleeto dadka halka ay degan yihiin waayo waxaan ahay buu dhahaa tagsiile. Tagsiilayaasha badanaa adareyska ama ciwaanada dadka degan yihiin si fiican bay u fahmaan. Wuxuu dhahaa waan waynay goobtii gabadha ay ii sheegtay. Gabadhii ayaa u sheegay oo ku dhaha anigu wax ciwaan ah ii sheegtay ma arkaayo, marka maxaan sameynaa? Sidoo kale anigu waxaan rabaa inaan xaafadeeni ama gurigeeni aado. Aniga oo yaaban oo markaasi tine adareyskii gabdhihii aan waynay ee deganaayeen ayay labadii gabdhood markaa waxay dhaheen waxaan raadi doonaa ama waxaan rabnaa inaan xoogoo socono si aan u raadino ciwaankii aan deganeynay. Marka waxay iskaga dhigayeen dad yaqaano ama dad xaafadan degan, laakiin aniga waa igu cusbeed. Gaarigii ayaan kasoo wada degnay ayuu yiri, gabdhihii ayaana markaasi socod bilaaw, anna gadaashooda ayaan socday. Hal mar ayuu xaalka isbedelay ayuu dhahay, waxaan dareemay murugo ama qalqal ama walwal ayaan dareemay. Gabdhihii labada dumar ahaa hal mar ayay igu soo jeesteen ayuu dhahay, mid kastana waxay la soo baxday bastoolad. Bastooladii ayaa layga saaray, midna hore ay iga soo martay ayuu dhahay, midna gadaal. Waxayna markaas isku dayeen in markaas ay la hadlaan aniga oo markaas bastoolad laygu hayo. Waan fiiriyay ayuu dhahay, waana yaab. Kadibna waxaan ku dhahay sidee wax u jiraan? Waxayna gabadhii dahraan ahayd iigu jawaabtay, annagu waxa aan raadineynaba adiga ayuu ahaa ee ma raadineynin annaga ciwaan ama address. Marka goobtan waa goobtii ugu talagalnay inaan markaasi kugu aragno. Waa maleysan waaye ayuu dhahay, waxaan isku day inaan fiiriyo geesaha laakiin wax jooga ma jirin. Labada dumar oo indho shareerka xiran oo bastooladaha wata bis ayaa wuxuu dhahay goobta aan isla joognay. Waxaan weydiiyey waxa ay iga rabaan. Waxa ayna ii sheegtay gabadhii dahraan aheeday mushaarka aan qaato kala bar ama qayb ka mid ah inaan bil kasta gabdhahan markaasi u soo diro ama inay ayaga qaataan. Haddii aan taas ka diidana bedelkeeda ay dili doonaan. Waxayna iigu tiri dahraan, haddii arrinkaasi aad fulin weysid ogow adduunyada oo dhan ama iftiinka ayaa laga qarin doonaa. Aniga wuxuu dhahay waaba naxsanahayba, gacmihii ayaa i baraf i noqdeen, roob waa uu da'ayaa, naxtin iyo murugo ee suuqa kajarsantay. Waxaana ka shalaayay istaagii aan usoo istaagay inaan soo caawiyo oo intaasoo daqiiqadood aan halkaan keeno. Lugteeda ayaan ku imaaday ayuu dhahay goobtaani halkaani ee i keeneen gabdhaha. Naxtin aad u fara badan ayaa igu dhacday ayuu yiri. Ma garanayn meel aan wax ka bilaabo. Markaa kadib waxaan dhahay aniga oo nafteeda badbaadsanayo, waxaan diyaar u ahay inaan wax kasta aad rabtiin idiin fuliyo, ee hadda ma iska bixi karaa? Dahraan oo qoslaysa ayaa waxay ku tiri hadda waa bixi kartaa, laakiin bisha marka ay dhammaato ayaa noo balana. Sidoo kale qof haddii aad la wadaagtid arrinkan aniga iyo adiga noo dhexeeyo, ogow sidaas si lamida waa dhima doontaa. Marka way u hanjabeen oo waa ay taakeeyeen. Waana arrin markaas hore ay ku soo ballameen labada dumar ah. Kadib wuxuu dhahay aniga oo naxsan, aad u walwalsan, ayaa gabdhihii gaarigii ku soo qaada mar labaad. Markii aan wadada laamiga ku soo dhacanayna waxay igu tiri dahraan halkaan noo istaaji. Halkii ayaan u istaajiyey oo halkaas ayay iiga hareen. Waan baxay gurigeyga ayaan tagay ayuu dhahay, ma aqaano waqti aan tagay iyo daqiiqad aan soo cararay. Gurigeyga aniga oo taagan ayaa arkay habeenkii oo dhan ayaa waaga wuxuu iigu baryay soo jeed. Ma jirin qof aan la wadaaga arrinkii soo qabsaday. Habeenkii oo idil markii aan soo jeed ku dhamaystay, waxaan go'aan ku gaaray inaan mushaarkeyga qayb ka mid ah dumarkii nafteyda markaasi rabay in ay dhaafiyaan in aan bixiyo. Inta kaleetana reerkeyga inay ku filnaa doonto ayaa niyadda iska dhahay ayuu yiri. Kadibna waaga markuu u bari waxaan bilaabay inaan shaqadeydii aado. Shaqadu waxay ii ahayd markaasi waqti aad u xun, sababtoo fikirkeyga ayaa ku badnaa habeenkii wixii igu soo dhacay. Marka aniga oo maqano jooga ah oo qalbigeygu uu maqan yahay laakiin jirkeygu kaliya uu joogo ayaan shaqeynayay. Shaqadii waxaan sidaasi wadaba dumarkii markaa gabadhii dahraan aheeday. Markaa dahraan waxay bilowday inay ii soo dirto fariin qoraal. Markasta ay istiraahdo Idris xoogoo waa uu shaqeeyay. Fariin qoraal ayay ii soo diraysa waxa ayna igu laheeday intaas lacaga ayaan lagaaga baahan yahay ama intaas lacaga ayaa loo baahan yahay. Markaa lacagtaasi oo ah lacagtii markii hore aan dhahay waan bixinayaa wax kasta ay iga baahan tihiin. Runtii marka aan bixinay aad iyo aad baan ugu xumaa ayuu yiri, sababtoo maba ahayniba ani wax ii qorshaysnaa, laakiin cabsi aan ka qabo gabadhahaas habeenkii i qabtay ayaa wuxuu dhahay wax kasta madaxooda u sameynayaa. Kadib wuxuu dhahay dhowr maalin markaan arrintii sidaasi wada isbuuc ku dhowaad oo gabadhiina wixii aan shaqeeyay kala bar ay u taagan tahay, iguna taakeysay in waalidkeeda ama reerkeyga ama dadkeyga ama dacwo haddii aan soo gudbiyana
ay idili doonto micnihii waxay ku tiri aniga iyo adiga adna waad dhimanaysaa adna waa la ii xirayaa marka haddii arrinkan qof aad la wadaagtid iska jiray ku tiri kadibna wiilkii wuxuu go-aan ku gaaray arrinka maadaama sidaas uu yahay inuu shaqada dhanba iska joojiyo gurigana uu joogo 2 maalmood markuu guriga joogo hooyadiis ayaa ugu soo gashay qolka Idris waxayna weydiisay waxa ku dhacay Idris ma uusan sheegi karin wixii ku dhacay hooyadiis waxa uu sheegay inuu jiran yahay uu rabo isbuuc ka dhawaad inuu guriga joogo aabihiis ayaa canaan aad u xoog badan Idris uga timid waxa uu u sheegay in reerka kaligiis ay ku tirsan yihiin sidee ku dhici kartaa ayuu dhahaa aabe inaa intaas oo maalmood aad guriga joogto macquul ma ahan wiilkaygiyo fadhiga ka kac kadib Idris maadaama hooyadiis aabihiis ay sidaas ula hadleen shaqadiina inuu joojiyo uu go'aansaday waa ay suurtageli weysay go'aankiisa ma aysan dhicin inuu guriga joogo marka haddana isbuucii labaad waxaa dhacday arrinkiioo aad ugu xun in uu la wadaaga gabadh walaashiisa aheeda ee guriga kula nooleed waayo hooyada iyo aabaha waa uu ka baqaya inuu la wadaagin walaashiis aad bay u fiicneed laakiin maxaa dhacay walaashiis waxa uu sheegay in dumar 2 qofooda uu rabay inuu caawiyo ay ku soo jeesteen isla markaasna ay ku noqdeen 2 dumar oo tuugo ah isla markaasna hub ay wateen ay ula soo baxeen uguna hanjabeen inay dili doonaan haddii uusan bixinin lacagaha uu ku shaqeeyo qayb ka mid ah habeenkaasna uu ogolaaday inuu qayb bixiyo walaashiis aad bay u qaracantay wayna ka xumaatay waxayna ka codsatay in dumarka ay tusto laakiin asaga oo diidaya in halkaas dhib ka dhacaan ayuu walaashiis u sheegay in dadkaasi aan la arki karin kaliya lacagta qayb ka mid ay u taagan yihiin inay qaataan markaa walaashiis way fikirtay waxa ayna go'aan ku gaartay waxaan walaalkeed dhibaatada ku hayo in ay wax uun ka qabato talo maxay qaban kartaa waan arki doonaa gabadhii waxay bilowday inay raadiso ciwaan iyo fariin qoraal iyo lambar email laga helo dumarkaas oo walaalkeed waa haddii taleefanka loogu soo diray waxay wax raadisaba ugu dambeyn waxay heshay meel markaasi lagala xiriiro dumarkii habeenkii walaalkeed markaasi dhuunta u galay ee u sheegay inay dili doonaan markaa waxay soo heshay fariin qoraaleed ay isku dirdireen iyo sidoo kale ayagoo lacagtii dalbanayo iyo sidoo kale waxyaabo badan adiga oo halka ay joogaan ka ahayn ay gabadhii halkaasi ka heshay walaalkeed ayay la wadaagtay waxa ayna ku tiri dhammaan waxaa helay akhbaaraadkii ku saabsanaa dumarkii habeenkaas ama maxaa la dhahaa habeenkaas rab inay ku dilaan marka waxay ku tiri aniga iyo adiga waxaan rabnaa inaan aragno 2 dumarka ah haddii aad sidaas sameyn weysan hooyo iyo aabba ayaan kuu sheegi doonaa arrinkan wuxuu noqon doonaa mid fashilmay ama dumarka ku dilaana ama ay ku dilini aniga iyo adiga inta ay nagu koobantahay sheekadaani waxaan rabaa in markaasi dumarkaasi aan ogaado maalin ayaan kuu balami doonaa ayuu yiri Idris oo aad uga xun in markaasi walaashiis ay aragto 2 dumarka ah ee asaga oo nin ah ama asaga oo rag ah soo handaday ee soo markaasi inay dili doonaan ugu soo hanjabay walaashiis haddii aragto maxay ka qaban kartaa ugu dambeyn waxaa dhacday Idris waa uu diiday in uu walaashiisa tusiyo 2 dumarka ah ee dhibaatada ku haya walaashiis waxay tiri haddii ay sidaas tahay adiga unbaa kugu daayay arrinkaani wax ka qabo markaa sidaas ayagoo ku ballameen walaashiisa go'aan ayay hoos ka xariiqday go'aankaas oo ahaa in walaalkeeda ay daba kacdo marka uu baxo si 2daas dumarka ay u soo ogaato sidii ayaana yeeshay waa ayna daba kacday maalin uu Idris soo shaqeeyay 2dii dumarka aheedna ay sugayaan in lacagta qayb ka mid markaasi uu ku wareejiyo ayuu kula kulmay meel markaasi ay ku ballameen ayadana walaashiis waa ay daba socotay waxayna soo aragtay 2dii dumarka aheeday kadib waa iscelin weysay oo banaanka ayay u soo baxday waxa ayna markaas isku dayday inay la hadasho 2dii dumarka aheed dumarkii ayaa ku qosleen Idris kuna yiri maxay tahay qoftan aan noo soo kaxaysatay soo kuma dhin arrinkan qofna hala wadaagin gabdhihii oo markii horeba bastooladahooda u diyaarsanayeen ayaa bastooladihii la soo baxay waxa ayna Idris u sheegeen sababta qoftaaniit uu soo kaxaystay marka wuxuu ku yiri aniga ma soo kaxaysan qoftan waa walaashay oo halkan ayay maraysa asaga oo aad uga cabsi qabo in markaas halkaas dhibaato ay ka dhacdo dumarkiina ka baqaya marka kadib dumarkii oo gabadhiya waxay tiri anigu waxaan ahaa wiilkan walaalkiis marka sidee ku dhacday inaa walaalkay u hanjabtaan isla markaasna aad lacagtuu soo shaqeeya dhax u taagan tihiin marka wax aqliga galaya ma aha gabdhihii waxay ku dhaheen ilaan waa dad tuuga ah oo weligoodba dhaqankan ku shaqaysan jiray waxay ku dhin annaga adiga oo dumar annaga waxba nagama qaadaysid marka inaan arrinkan soo gelinin ayaa kuu wanaagsan
markaa gabadhii walaashiis aheeday ee idris la dhalatay waa ay xanaaqday waxayna isku dayday gabadhii dahraan aheeday inay markaasi ku boodo oo ceeji ay dhuunta ku qabato laakiin qof bastoolad wata lama dagaali karee sidii waxmoodeysa ma noqonin oo dahraan waxay riday xabad kadibna gabadhii la dhalatay idris ayaa xabadii ku dhacday idris oo markuu arkay dhiigga walaashiis qalqale isla markaasna isku dhex yaacay dahraan laftirkeeda marka ay aragtay dhiiga gabadhii oo dhulka ku dhacday ayada iyo gabadhii kale ee indhashareerka xirnaayeenba goobta waa ay ka baxsadeen waa ayna carareen idris ayaa gacmaha la galay dhiiggii markaasi walaashiis waa uuna qeyliyey oo waxa uu dalbadeed markaas dad caawiyo dadka xaafadda deganaa ayaa isugu imaadeen markaasi dhacdadaas halkaasi ka dhacday sidoo kaleeta booliska ayaa la wacay oo booliska ayaa goobta yimiday gabadhan la dhalatay idris markii dhakhtarka la geeyeyba waxaa la dhahay gabadhu waa ay dhimatay oo mar hore ayayba dhimatay marka xabadii ugu horreysay ee ku dhacday gabadhan la dhalatay idris ayaa meel xun uga dhacday kadibna gabadhu naf maba kuu jirin marka la geynayay dhakhtarka kadibna gabadhii halkaas ayay ku dhimatay idris ayaa waxaa dhacday in booliska ay xeen isla markaasna ay u sheegeen waqtiga goobta uu imaanayay booliska in idris uu gacmaha markaasi kula jiray dhiigga gabadha dhimatay saas darteedna dembiga oo dhan asaga ayaa dusha laga saaray waa la xiray idris laakiin waxa uu sheegay kulli dhammaan wixii meesha uu ku arkay iyo gabdho 2 qofooda dumar markaasi in ay handadeen isla markaasna dhibaata ay u geysteen dhibaatadaasna ay dumarkaasi ka dambeeyeen weliba in walaashiisa ay geeriyooto marka arrinkan inuu falkaani uu asaga wax luga ku lahayn ayuu idris sheegay laakiin waxaa loo sheegay in la raadi doono markaasi xog dheeraad ah waxaana loo sheegay in la xiri doono sidoo kale markii la xiray idris ayaa waxaa dhacday hooyadiisii iyo aabihiisii arrinka waa ay maqleen inay aada uga xumaadeen in gabadhoodiina ay geeriyootay oo weliba si kamaha ay u geeriyootay wiilkoodiina uu xiran yahay markaa arrin aada u naxtin badan ayay ku noqoto hooyada iyo sidoo kaleeta aabaha waxayna u aheeday markaasi maalmahaasi maalmo madow waayo markaa kadib waxaa dhacday idris markii muddo uu xirnaa walaashiisiina ay dhimatay hooyadiisii aabihiisna arrinka dhacay aad uga xumaadeen ayaa waxaa dhacday markii maxkamaddu ay raadisay baaritaano farabadanna ay samaysay xog dheeraad ahna ay samaysay waxaa dhacday in labadii dumarka aheeda lasoo helay islamarkaasna lasoo xiray oo idrisna loo sheegay in markaasi uu fasaxan yahay inta aan idris la fasaxin oo xorriyadiisa dib uu u helin waxaa halkaasi ka dhacday in markaasi maxkamadda laysugu imaaday labadii dumarka aheeday iyo sidoo kaleeto idris waxaana halkaasi gabdhuhu ay ka sheegeen in markaasi dhibaatada halkaasi ka dhacday ay ku lug lahaayeen rag badan iyo dumar badanna inay dhibkaas u geysteen isla markaasna ay raadinayeen nolol maalmeedkooda markaa nolol maalmeedkooda ayaga oo raadinaya labadaas dumarka ah ayay dumarka wadada u geli jireen oo handadi jireen isla markaasna ay dhibaatay jireen ama ragga ayay markaasi rakaatiin jireen ayaga oo markaasi baastoolado usoo baxsanayo ayay ragga u sheegi jireen in markaasi lacag ama waxsaas camala laga qaado noloshooda ayaaba sidaas iska aheeday markaa ugu dambeyn waa la qabta waxaa layiri luqluq marow laasin laamiga wax badan hadday sidaasi sameeyeen labadii dumarka aheeda waa la qabtay waana la xiray waxaana lasoo taagay maxkamad kadibna halkaas ayaa waxaa lagu xukumay mid walbaba 12 sano oo xariga ayaa lagu xukumay idris ayaa laakiin ka shalaayay in walaashiisii halkaasi si kama ay ugu dhimatay weliba fal asaga uu geystay haddii si loo fiiriyo maadaama asaga uu dumarkan soo bartay rabay inuu caawiyo falkan wuxuu ahaa mid asaga dhankiisa ka imaaday hadduu ahaa mid wanaagsan iyo hadduu ahaa mid qalad ahba labadaba falka wuxuu ahaa mid ka yimiday idris xaggiisa oo asaga ayaa dumarkan inuu caawiyo jeclaysta dumarkiina waa isbedelin oo libaaxyo ayay ku noqdeen markaa walaashiisa waxaa markaas halkaas keenay ee sida kama ay ku dhimatay waxay aheyd wax markaas asaga dushiisa ku yimiday aad buuna uga xumaaday qisada marka ay halkaasi maraysan idris wuxuu aad iyo aad uga qoomameeyey in dumarkaas uu habeenkii bartay habeenkii roobka da-ayay inuu u istaago ayuu aad iyo aad markaas uga qoomameeyey waxayna markaas la noqotay wax markaasi si nuuc kaleetaa u dhacay waayo asagaba isma dhihinin walaashada iyo dumarkan dili doonaan sidoo kale dumarku waa tuugo isma dhihin dumarkan waa dumar hubaysan isma dhihin markii kooba muusan ka cabsanin ee qof markaasi caawis u baahan oo kaliya ayuu u fahmayay marka
yaabaa marmarka qaar wax aa u malaynaysid wax fudud ayaa wax weyn kugu noqon karaa. Markastana taxadirka waa uu fiican yahay. Dadka oo dhanna lama wada caawin karo waayo dad xunxun ayaa jiraan. Dadkana lama ogaan karo ilaa maxay ahayto marka arrintii kugu dhacdo oo kaliya ayaa la ogaan karaa dadka markaasi nuuca ay ahaayeen. Runtii qiso xanuun badan ayay ahayd. Wiilkaas asaga wixii markaasi la rabay ama dumarka ay la rabeen walaashiisa ayay ku dhaceen oo waxay noqotay qof markaasi iyada oo wax dambi lahaanin si markaasi fudud naftii looga qaaday ama si fudud naftii ay gabdhahaas tuugada ahaayeen ay nafteeda u dhaafiyeen. Marka aad baan ula yaab runtii qisada qofka laga hadlayay qisada marka ay ku dhacday iyo qofka geeriyooday ee si kama u geeriday laba bay kala tahay. Marka runtii caadi ma aha qisadu aad bay cajiib u tahay markii si loo fiiriyo halkaas waxaa laga fahmayaa ama laga baranayaa in aadan qof kasta aaminin waayo dadku kulligood ma wada wanaagsana. Waa idin mahad celinaya asxaabta muuqaalkan muuqaal ka duwan intaa ku kulmeen waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.